qof noolaanaya nuguma jiro waxa la isweydiinaya xagee ku dhimato ama waxa ku dhimanaysaa gurigaaga iyo sariirtaada ama waxa dhimanaysaa adoo iska fujinaya dulmiga wallada noolaani qofna lama noolaani madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa gaaray deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud halkaas oo dhawaan lagu xoreeyay maleeshiyaadka al-shabaab madaxweynaha oo ay weeliyaan wasiirka amniga Galmudug xildhibaano isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed gudoomiyaha degmooyinka Cadaadada iyo Baxdo ayaa ku galay kormeerida xaaladda guud ee deegaanka difaacyada iyo furimaha ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay kaga sugan yihiin deegaanka qayb madaxweyne Qoorqoor oo goob fagaaraha kula hadlay qaar kamid ah ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ayaa bogaadiyay sida casharada lama ilaawaanka ay ugu dhigaan maleeshiyaadka al-shabaab oo dhowr jeer weerar ku soo qaaday deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud madaxweynaha oo furimaha hore ee dagaal kula hadlay dadka deegaanka iyo ciidanka qalabka sida ayaa kula dardaarmay muhiimadda ay leedahay la dagaalanka maleeshiyaadka al-shabaab asagoo tusaale u soo qaatay dagaalada qabaa'ilka iyo sida markasta beeluhu ay dhaqaale ugu bixiyaan dagaalada qabaa'ilka madaxweynaha ayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Galmudug waxa uu kula dardaarmay inay u kala harin dagaalada jihaadka ah ee lagu jiro maleeshiyaadka al-shabaab waxa la geli jiray dagaalo xaq darro ah oo qabyaalad ku dhisan oo xukun ku dhisan oo wax kale ku dhisan maanta waxaan haysanaa dagaal xabadaad ku dhifata ajri xasan ilaahay ka siinay qof noolaanaya nuguma jiro waxa la isweydiinaya xagee ku dhimato ama waxa ku dhimanaysaa gurigaaga iyo sariirtaada ama waxa dhimanaysaa adoo iska fujinaya dulmiga oo iska reebaya wallada noolaani qofna lama noolaani marka walaalayaal mujaahidiinta sharafta leh waxaan leenahay intay soo ordi kareenna waa soo ordeen inta anagu socolahayn hadda noo dhiman waana soconaynaa madaxweyne Qoorqoor oo si hadlay ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin qabqablayaal ah kuwaas oo siyaasad ku raadinaya dagaalada lagu jiro maleeshiyaadka al-shabaab iyo soo kala howlgallada dadka deegaanka ku baxsanaya maleeshiyaadka asagoo sheegay inay baraha bulshada markasta ka soo aflagaadeynayaan ciidamada kala duwan ee dagaal kula jira maleeshiyaadka al-shabaab waan ognahay dadka siyaasadda kale ama siyaasiyiinta ku howlan inay siyaasad ka raadiyaan ama jaanis ka raadiyaan inay cadowga loo nuglaado oo ay guusha dhibayso oo ka naxaya guusha oo ay dhibayso horumarka isagoo ka eegaya siyaasad iyo meelo xun oo aad u liita ee adeejinaya waxa hadda facebookyada iyo qaaqlayaasha baraha bulshada way wadin ogna wax nooma kala qarsoona fariinna naqaanaa waadin ogna walaalayaal kuwaas waxaan ugu baaqaynaa daad siyaasad xagga noo dhig dalka aan xoraysanno qawaarijtana aan iska qabanno hanan dhabar jebinina dadka mujaahidiinta iyo dadka safka ku jira al-shabaab ayaa 3 jeer dagaal la geystay khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa ay ku soo qaadeen deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud ayagoona burburiyay goobo muhiim u ah deegaankaasi deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud ayaa kamid ah deegaanada ay in badan ka arrimi jireen maleeshiyaadka al-shabaab ayagoona halkaas u taalay maxkamad beeneed ee ku dhibaatay jireen dadka reer Galmudug dhanka kale ururka al-shabaab ayaa 28 qofood oo dhamaantood ah dad xoolo dhaqato ah oo nolosha beesha reer Xaaji Saleebaan waxa ay dib u siiyeen xorriyadooda kadib markii ay muddo afdub ugu haysteen degmada Xardheer ee gobolka Mudug maxaabiistan oo 28 qofood ah ayaa waxa la sheegay in 3 kamid ah ay ahaayeen dumar halka inta kalena ay ahaayeen rag waxaana sii deynta maxaabiistan ay kooxda al-shabaab kala xaajoodeen odayaal dhaqameed ka soo jeeda beesha reer Xaaji Saleebaan oo dhawaan aaday deegaanada ay ka arrimiyaan maleeshiyaadka al-shabaab sida ay xaqiijiyeen qaar kamid ah ehelada maxaabiista la sii daayay ayaa sheegeen in ay la soo xariireen una sheegeen in xorriyadoodii ay dib u heleen isla markaana ay ku sugan yihiin degmada Xardheer ee gobolka Mudug dadka aan ka helay xogta ima aysan sheegin heshiiska odayaasha dhaqanka kooxda al-shabaab ay galeen ee sababtay in maxaabiistan ay xorriyadoodii dib u helaan waxaana dood aad u xooggan ka taagan tahay odayaashii dhaqanka ee dhawaan la sheegay inay ku biireen maleeshiyaadka al-shabaab ma waxay ahaayeen dad doonayay maxaabiis ka xirneed oo beeshooda ah mase waxay ahaayeen odayaal ku biireen maleeshiyaadka al-shabaab Axmed Faarax Maxamed warbaahinta SMS deegaanada Galmudug